maalmihii u dambeeyay waxa isi soo tarayay cabashooyinka ay qabaan muwaadiniinta Soomaaliland ay ku sugan magaalada Berbera isla markaana ku saabsan ajaanib kala duwan oo tuurta u ritay shaqada ay muwaadiniintu qaban lahaayeen dhalinyarada shaqo la'aantu ragaadisay oo ku sugan magaalada Berbera isla markaana TV-ga Erya la hadlay ayaa cod dheer ku sheegay in tan iyo wixii ka dambeeyay markii shirkadda DBO la wareegtay gacan ku haynta dekedda magaalada Berbera ay dhammaanba shaqooyinkii muwaadiniintu qaban lahaayeen u dirsatay ajaanib laga soo waariyay dalal shisheeye waxayna si gaar ah u xuseen dekedda cusub ay dhisayso shirkadda DBO iyo sidoo kale beeska imaaraadku ka dhisanayo magaalada Berbera marka shaqo kasta oo soo baxda ama DBO waxa ka soo baxdo dekedda ama madaarka ha noqoto ama mid kale gaar ba loo leeyahay guriyihii la dhisay haatee wixiiba waxa la wareegay ajaanib waxaan anigu maalin ka qayb galay seminar ay qabanayaan qolaha hay'adi waxay naga dhaadhiciyeen dadkan ajaanibka ahi ma aha dad soo shaqo tagay waa qaxoonti anagu taamaana qaadan markii baan anigu ka hadlo waxaan ku yiri wax de qaxoontiya ka badan waa dad soo shaqo tagay kii istambarka yaqaanay iyo kii marmarka yaqaanay iyo kii rinjiga yaqaanay iyo mid waliba uu ka buuxa dhalinyarada gobolka saaxil iyo muwaadiniinta haddana maalin walba waxa laga soo qaadaya dee dalal aan garanayn madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee ay hoos tagaan arrimaha bulshada dhamay waxaan leenahay wadikii ka hadlayay oo idinka waan daaranay idinka ka hadlayo le wixii aan muwaadil qaban karo ajahanimo qabanayee haddaba anagu waxaan idin cadeynaa inuu qabtay uu gibigeediba qaatay sidoo kale waxa jira dekad cusub oo la bilaabay dadka ka shaqeeya 100% wadada Janabiya waxaan ogeyn dekada hore oo marka horeba dhalinyarta laga qayb galin shaqaalahooda marka laga reebo in yaro gaaray madaxdu geysatay mushkiladda hadaba naasta waxa weeye tan dhalinyarta gobolka nahay geed dama laba la garaaco markaas uu yiri geedka markuu sii dhacay gudunaya ma tirteen hadaanu gankay kugu jirin annaga arrinka waxa ka mas'uula maanta arrinka nagu dhacay waxa ka mas'uuliyiinta gobolka waxa marag la'aana inuu hadaanu dhalinyarta gobolka aanu tagnay barasabka magaalada annagoo doonayna in tababarna la siiyo way shaqadana Janabigu hayo ma aha shaqo aanu aqoon ahaan qaban kari weynay mana aha shaqo aanu karti ahaan qaban kari weynay waxaanu aragnaa in nalagu ceeb ay nagu tahay in dad Janabi shaqadeeda hayo mas'uuliyiinta gobolka ugu sareysa dhammaantood way ogyihiin oo barasabka ugu horeeyo barasabka oo nu tagnaa waxaan nidhi wax nagala qabo wuxuu nagu yiri ma fahmayo waxa arrimaha gobolka socda haddana in isaga u gaaro shalay maandhood geystay haddaba madaxweyne waxaanu ka codsanaynaa anagoo ah dhalinyarta gobolka saaxil inaanu helo waxaanu xaq u lahayn waxa jirta shaqooyin laga qabto magaalada oo asaasi ah social work la yiraahdo shaqooyinkaas dhammaan badankooda waxa qabta dad China ma laga aqoon badnayn tiin shaqooyinkii iyo wixii tababaradii iyo wixii gobolka ka socday wax qabadadii day soo dhigatay iyo dadka tahayba inuu ajaanib muraasaday loo dhalinyaradii gobolka 100% ay bila caamal tahay oo meel walba hurin joogto marka anagu waxaan codsigeeyay in cabashadeena gaarsiinayna madaxda sare ee dalka ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u leenahay madaxweyne deetada sheegay baa gobolka saaxil ka taagan taasoo ah dulmiga aad diiday oo inta ajaanib wadanka laga soo qaaday maanta uga nasiib yeeshay ninkii Berbera joogay China laga keenay uga nasiib yeeshay dekadii Berbera ku shaqo galo ama garoonka diyaarada taasaan haysata oo taasa jirta ma waxa wax la qaataa madaxweyne ninka China iyo Hindiya bagaale leesha Filibiin ka yimi inuu intuu ka shaqeystay magaalada Berbera uu dheelada ugu qaalisan dago ninkii wadanka lahaana uu gaajo beerka dhulka ku hay ma waxa wax la qaataa shirkadda DBO iyo sidoo kale mas'uuliyiinta imaaraadka gacanta ku haysa beeska magaalada Berbera ayaa aamus kaga jira cabashooyinka bulshada kaga imanaya barasabka gobolka saaxil aan xiriir la sameeyay si aan cabashada dhalinyarada wax uga weydiiyo ayaa ii sheegay inuu hawlo shaqo u joogo magaalada Hargeysa wasaaradda shaqo-gelinta Soomaaliland oo u xilsaaran shaqaaleysiinta muwaadiniinta Soomaaliland ayaan wax ka weydiiyay waxa ay kala socdaan cabashadan soo laalaabatay ee ku saabsan in shaqaale ajaanib ahi ay la wareegeen shaqada ay muwaadiniinta u qaban shirkadda markuu ugu horeysay dekada qolada waa shirkadda DBO ee dekada Soomaaliland ee hore gacanta ku haysa taasi wax maamula iyo midad injineera waxaan ahayn oo ajnabi oo la jooga ma jirto gebigo 10 ama wax ka yar weey
waxaan la jooga ee shaqaalaha ajnabiga la jooga oo taasi shaqaale maaha waa maamul kale weynu u dhiibanay dekada cidna kama hadli karto taasi waa ta labaad weli shaqadii dekada may bilaabin weli shaqadii dekada si rasmi ah ma bilaabin kaliya waxa socota halkii alaabta laga soo dejinayay oo halkii alaabta laga soo dejinayo la soo marinayay beeska alaabta ay dhiganayeen iyo halkii ay alaabta ka dhisanayeen ee shirkadu ay degaysay labada meelood baa socota intaas hadda ilaa hadda iyaga dhisanaya way jiraan niman injineer oo Soomaali oo la shaqeynaya way jiraan hadii lagu koreeyo dad kale oo Soomaali ah dad inaga ah oo dadkeena ah oo la shaqeynaya reer Soomaaliland la shaqeynaya way jiraan Soomaaliland dalina oo waashmaan leh oo injineer hal way jiraan ciidankeena waa joogo isna goobta ka hawlgalo oo shaqeynaya taas marka in u leexano xagga madaarka 140 qof oo reer Soomaaliland baa ka shaqeeya oo nooc walba isugu jira darawalkiile nijaarkiile alxankiile biralaabkiile kuuligiile waashmaankiile wax walba leh wax alla wax laga doorbidaya ma jiraan madaxweynaha ayaa ku dhawaaqay in aan shaqo muwaadinku qaban karo aanu ajnabigu qaban xeerka ka weyn hadalka madaxweynaha oo cadeeyay in aan shaqo muwaadinku qaban karo ajnabigu qabanin maslax salabaan sidee telefishinka Ariel Barbara